gudoomiso gabadhaaniiti gudoomiso soo jeeso haye wada gudoomiso makeupka nagada soo jeeso maxkamad baa joognaaye haye wada gabadhaaniiti waa saaxiibteeda qaaliga ninka aan la sheekaystay la sheekaysataa intaasoo nin adduunyada joogto midka aan la sheekaysta bal maxaa ku diray naa maxaa ku falaa ninka xunaad ka sheekeynayso gudoomiso gabadhan saaxiibtay aad u shaki badan tahay waxay leedahay isku message baa noola soo diraa xarfaha iyo shaqalaha isku eg waxaa surmiya gudoomiso waa runtii fiiriyaa anigu wuxuu ii soo dirayaa xa ba ta iyo ma ca ta o isla intaasoo ayadan u diray anaa arka wallaahi waxaas eed ma noqoto gudoomiso nimankao dhan asaas wax u qoro gudoomiso magacani ninkaa shukaasa isla magacaasoo ayadeysana leeyahay macquul miyaa waxaas taas maxay dhibay soomaali dhanaa isku magacay ani xitaa hadda meeqaa jirta oo zamzam la dhaho xitaa magaca aabbaha way isaga egyihiin iyada xitaa wax micno la isku ekaa karaan koos asi keligiis magac gaaro ma lahan magaca wax tiro isku mid marunba way isku ekaa karaan sababtoo ah soomaali dhan isku magac ay baxsadaan kooga xataa waa iska egyihiin taas macquul miyaa hadane haa taas way dhici kartaa way isku ekaa karaan qadar allahu maa shaa facal sug adiga ninkaa la sheekaystid magaciis cabdibaasid cali maxamed jaamac adigna cabdibaasid cali maxamed jaamac cabdibaasid cali maxamed jaamac haye wada gudoomiso caddeyn kala kuu haayaa maalinta isniinta dhaweyd faraantigaas oo ii keenay isla faraantigaas oo ayadan uu keenay ka waran macquul miya wuu ii keeni karaa waxaa laga yaabaa hal mar inay ku wada fikireen oo maskaxdooda kusoo dhacday awoodda ilaahay maa kasoo horjeeda gudoomiso hee gabdhahan ninka ay ka sheekeynayaan wuxuu egyahay ninka aniga qabo laakiin ma garanayo sababta meeshan loogu hadalhaayo inkastoo waayahan dambe ay soo badanayeen gabdho nimanka xaaslayaasha ka daba cararayo laakiin ma garanayo anigu kale gudoomiso hee anigana ninkan nin u magacay baa qubsiriigu qaba gabadhan yarna waan u dhale wuuna iga tegee faraantigaana isniinta ayuu ii keenay ma garanayo marka inuu isiga yahay in kale runtii ilaahay ay maqan dhegeysta ii sheega ninkaas dhaqamaha iyo calaamadaha uu leeyahay wuxuu ahaa qof aad u been badan laakiin waa hadal macaana waa baqiil laakiin cuntadiisa macaan markoo maqaayadii geeyay biiso beegar soo cuni jiray kaaska arag waay waa aqoon-yahan waayo mar walba wuxuu igula hadlaa english wuxuuna i dhahaa xiriirkeen waa inuu simbol noqdaa uusan noqon combalicate iyo waxyaabo saas oo kale ah ninkaas wuxuu igu dhahay ganacsada ayaan ahay meelaan ka shaqeeyaana wuu i dhahay meeshaasna waxbaan ka ahay walaahi mowji xaaladiisa waan ku wareersanahay xageen ka shaqeeyaa buu idin dhahaa billy media ka shaqeeya oo igu dhahani waara fragrance ka shaqeeya uu dhahay saara cosmetics anigana wuxuu i dhahaa waxaan ka shaqeeyaa aqalsan gaari noocee buu idinkugu yimaadaa ani saarif oo igu imaadaa anigu wuxuu igu imaan jiray gaari haryar ah heele calaawi ani wuxuu igu imaadaa bajaaj sawirkiis i tusa askari gudoomiso cabdibaastaal soo qabto amarkaaga waryaa ee gabdhaas ma taqaanaa magacaa jaabir
cabdibaasid ma lagu dhaho xildhibaan maa tahay may laakiin aniga sanadkan baan rabaa inaan soo sharxo wiilala saaxiibanahay iyo akhyaar qaraabanahayba oo leeleyno sanadkan insha allah soo baxaya walaahi soo bixi weyday xaggee ka shaqaysaa ma shaqeeyo aamusa oo bal waxaa ku weydiiyey lacagta iyo gaarigaad gabdhaha ku kaxaysan intee ka keentaa horta lacagta gabar walaashay oo maraykanka jirta isoo dirta baabuurtana wiil oo aan saaxiibanahay reerkiis taajirin yihiin marka dhowr gaari iyo waxaasay haystaan marba miyaa kasoo qaataa soo adigii dhahay shirkad waara pregnancy lahaa lee oo barfuunada lagu sameeyo xataa waxay dhahday muqdisho qaybkaa siinaa aad ku shaqaysatid aad mas-uul ka noqotid waxay dhan been may ahayn wariyaa soo adigii dhihi jiray aqalsan baan ka shaqeeyaa dikrooshi qurux badan iyo alaabo qurux badan bay kaaga soo iibinayaan beentaabeed saas maa kuu dambeysa cabdibaasidow bil media agaasimo ka ahay agtarad caana kaa dhigayaa wax dhan been miyay ahaayeen uf walaahi been badan igaraal noqdo duruuf baa ii geysay wax duruuf yar baa iska kay wax duruuf horta ay u geysay ma jirto ninkan waana aragtaa guddoomiye wax walba nuur ku cad yihiin ninka asiga afkiis ka khirtay waxaa codsanayaan ninkan xukunka ugu adag in la mariyaa sababtoo xeerka dumarka u yaala iyo qiimaha dumarka ay leeyihiin oo garan waayo xukunka ugu adag sidee loo marinayaa ninkan asagaa khasab gabdhaha been buu u sheegay ayagana way rumaysteen asagana jaaniskuu ku helay waxay ahayd lacag ma haysanin duruufa ka muuqatay wuu ka faa'iidaystay soomaalida hore waxay u dhahday been kusoo xirogeli runtana ku dhaq tiiyuu sameeyey of course ninkan qalad ma lahan guddoomiso naagtii doontaba iska hadashatana xukumaysa waa aniga way berlasho waxaan ahay bukaanba kala cunay maxkamaddu waxay ninkan ku xukumaysaa $100,000 oo ganaax ah kadibna isbitaalka waalida la geeyo kadibna sariir la saaro